iyadoo tirakoobkii la qaaday 2 bilood ka hor ayaa waxaa la shaaciyay in ismaamulka Mandera uu hoos uga dhacay tirada dadkii la tirakoobay marka loo eego sanadii 2009 Bishaar Macalin Cabdullaahi waxaa laga soo doortay waaxda Takaba oo ka tirsan galbeedka ismaamulka Mandera waxa uu sharaxayaa sababta ismaamulada gobolka Waqooyi Bari uu tiradoodu hoos ugu dhacay ma aha natiijada aan filaynin maxaa yeelay natiijada maanta waxa ay muujisay maanta intii maartii guriyaalka xisaabta anaga u badannahay wadanka Kenya taasna uma qalanto natiijada ay soo saareen xisaabta dadka maxaa yeelay guriyaalka anaga ugu badanaa la Kenya haddana xisaabtina anaga u hooseynaa la taas waxa ay muujinaysaa intii xisaabtaas iyo guriyaalkii la soo saaray intuu maartii islaheen annaga dadweyna shacabka Northeastern haddaan nahay Waqooyi Bari dulmigan horaanba maartii taangu uhuru aan helnay nabadoonka aan helnay ilaa yawmin hada dulmigan lagu hayay waxaan ka baxnay 7 san la soo dhaafay maxaa yeelay maamul goboleedan helnay xurbaan helnay lacagtayn iyo dhaqaalahayn kulli county-gan loo keeni jiray anaga horumarkayn iyo plan-kayn kulli maartii anaga maartii baangaysan jirnay laakiin hadda waxay arkeen lacagtaas oo county-ga Mandera Wajeer iyo Garis noo imaanahay inta ay maartii nooga xasideen hadda dadka siyaasiga Northeastern aan nahay arintaas ma ogolaanayno maana ogolaan doono mudaharaadan qaadayna oo sharciga noo ogol constitution-ka noo ogol ilaa maartii anaga xisaabtii oo dhabtaheed ilaahay uu og yahay oo dhulkaayna maartii xisaabta sidii caadilnimo loo qaadaan ognahay dulmi aan dul qaadan karna ma aha sidii maartii sanooyinka 10 sano oo kale la yeeli intaan haddana maartii isilqaamno maxkamada la beegsano mudaharaad aan suubino oo maartii ilaa aan maartii xaqayna aan soo ridano waxaan leenahay buraarujini inta hordo laga kaco oo maartii xisaabtayni oo ka daba galno anagoo siyaasi dad fiican oo siyaasi weyn qabna baarlamaanka senatka MCA-shada dadka xisbiyaalka maartii wakiilnaga culimada aan istaagno haweenka mas'uuliyiinta dhammaan intaan wada istaagno aan xaqayna aan doonano taasan idinku gobaabin insha Allah ta'ala dawladda Kenya ayaa shaacisay tirakoobkii la sameeyay waxaana mas'uuliyiinta ismaamulka Mandera ay isweydiinayaan sababta ay hoos ugu dhacday tirada dadka inkastoo Kenya ay si rasmi ah u shaacinin halka ay aadeen tirada maqan